waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno qodobo ay ka mid yihiin tirada dhimashada cudurka korona oo 8,000 oo qof gaadhay qaaradda Yurub oo noqotay meesha uu uguna fiditaanka badan yahay dadka ugu badanna ugu dhinteen shirkad Faransiis oo ku dhawaaqday inay heshay daawadii cudurkaas wadamadii carabta ee harsanaa oo bando lagu soo rogay iyo WHO oo sheegtay inaanay dalalka bariga dhexe u soo gudbin warbixino ku filan oo ku saabsan waxyeelada cudurkaasi iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen ka hortagiisa qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka warbixinihii ugu dambeeyay ee ka hadlaya cudurka corona ayaa cadaynaya in arbacada maanta ay tirada dadka u dhintay cudurkaasi marayso 8,000 oo qof halka tirada la tabaalaysan ee bukaankaasi hayaana ay cagacageynayso 200,000 oo qof warbixinaha oo ay cadeeyeen jihooyin lagu kalsoon yahay ayna baahisay wakaaladda wararka ee AFP waxa kaloo ay tafaasiil ka bixinaysaa sida loogu kala badan yahay dhimashada cudurkaasi marka laga hadlayo qaaradaha kala duwan ee caalamka tirada dadka u badan ee u dhintay cudurkaasi waxa ay ku dhinteen qaaradda Yurub qiyaas u dhiganta 3,422 qof iyadoo ay 634 qof oo tirada ka midii ay cudurkan ugu dhinteen dalalka reer Yurub muddadii 24 saacadood ahayd ee u dambeysay taasoo ka dhigaysa inay Yurub tahay xudunta uu cudurkaasi ugu faafitaanka badan yahay caalamka oo dhan xilli ay qaaradda Aasiya oo ah halka ay dadka ugu badan caalamku kaga nool yihiin ahna qaaradii uu ka dilaacay xanuunku ay ilaa hadda ku dhinteen dad gaaraya 3,384 qof shirkadda daawooyinka Faransiiska ee Sanofi Group ayaa waxay ku dhawaaqday xalay Salaasadii inay diyaar u tahay inay ku wareejiso mas'uuliyiinta dawladda Faransiiska malaayiin dhibcood oo dawada loo isticmaalo ka hortagga duumada ee chloroquine oo ay shirkadaasi soo saarto iyagoo intaa ku daray inay dawadaasi damaanad qaad u tahay daaweynta bukaanada qaba cudurka coronavirus qadarka ay ku wareejinaysaa dawladda Faransiiskuna uu ku filan yahay daaweynta 300,000 oo qof oo bukaanka coronavirus ka mid ah daawadan oo magaceeda guud loo yaqaano Blacknil waa qayb ka kooban dhibco yaryar oo hydroxychloroquine waxaana loo adeegsaday 10 sanadood daaweynta cudurka duumada iyo cudurrada ku dhaca maskaxda qaarkood waana daawo si fudud loo heli karo oo dadka badankiisuna ay guryahooda dhigta iyadoo kiniino iyo erbadaba leh haatana shirkadda Faransiiska ay waxay ku adkaysanaysaa inay natiijooyin wacan ka gaadhay tijaabooyinkii ay ku samaysay sida dawada chloroquine ugu wanaagsan tahay ku daaweynta fayraska corona xilli ay dalalka carabta qaarkood hore ugu dhawaaqeen xidhitaanka xuduudahooda dhulka mamnuuceena duulimaadada diyaaradaha ee dibadda kaga imanaya ayaa haatan wadamo kale oo carbood waxay qaadeen tallaabooyinka hortag u ah faafitaanka fayraska dunida saameynta xun ku yeeshay ra'iisul wasaaraha Urdun Umar al-Razas ayaa kadib markii uu sida dastuurku dalku dhigayo ogolaansho uga helay boqor Cabdallah dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay qaanuunka difaaca oo ah qaanuun xaaladda degdega u dhigma awoodo dheeraad ahna siinaya xukuumadda si ay uga hortagto khatar xilliga taagan بناء على صدور الإرادة الملكية السامية قبل قليل ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين أعلن تفعيل قانون الدفاع dhanka dalka Tunis madaxweyne Qays Saciid ayaa isna iclaamiyay xaalad bandowa oo dalka uu ku soo rogay si ay taasi wax uga tarto dagaalka lagula jiro cudurka corona waxaana uu madaxweynaha Tunis sheegay in militariga iyo ciidamada kale ee amniga guduhu si wada jira roondooyin uga qaban doonaan dhammaan gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Tunis si ay u fuliyaan bandowga la soo rogay ومن بين هذه الإجراءات التي يقتضي هذا الظرف اتخاذها حظر الجولان بداية من يوم غد من 6:00 مساء إلى 6:00 صباحا وقد تم إصدار الأمر اليوم
إلى قواتنا المسلحة العسكرية وإلى قوات الأمن الداخلي بالقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية. dalka Tunis la jaarka ee Algeria ayaa madaxweyne Cabdilmajiid Tebboune waxa uu dhaqan geliyay go'aamo wax lagaga qabanayo fiditaanka corona. go'aamada oo ay ka mid yihiin in la xidhay xuduudaha Algeria guud ahaan lagana mamnuucay banaanbaxyada dalka oo dhan inkastoo uu sheegay in xaaladda caafimaad ee dalkaasi ay tahay mid gacanta lagu hayo. غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية. منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء. waddanka Gadarna gabadha u hadashay guddiga sare ee qaabilsan wax ka qabashada masiibooyinka Lu'lu'a Al-Khadir ayaa waxay ku dhawaaqday in bandoo la geliyay manطقada warshadaha ee caasimadda Dooxa sidoo kalena la xidhay suuqyada waaweyn ee dhanka ganacsiga sida bangiyada iyo seeladaha sarifka lacagaha marka laga reebo dukaamada cuntada laga iibsado. tallaabooyinka oo ay ku macnaysay inay yihiin kuwo lagaga hortegayo faafitaanka coronavirus socona doona muddo 14 casha oo la sii cusboonaysiin karo. استكمالا لإجراءات الوقاية الاحترازية فقد تقرر التالي: أولا، إغلاق جزء من المنطقة الصناعية يبدأ من الشارع 1 إلى الشارع 32 ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد. بعد اكتشاف عدد من الحالات هناك والتي تخضع للحجر الصحي الآن، وجاء هذا القرار لسلامة سكان المنطقة عن طريق إجراءات الفحص الطبي المستمر ووقاية المناطق الأخرى من انتشار الفيروس بشكل أكبر.